dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan ama cilmi baaristan ama dood wadaaggan ku saabsaneed glaucomada maamulka isbitaalka dhaqaatiirta soo jeedisay dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ka cudur daaran inaan soo daahay anigoo mashquulkaygu iska badnaa laakiin aan ka soo gaaray waan ku faraxsanahay intii timid dhammaan aad iyo aad ayaan u salaamayaa sidoo kale miidyada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo daawan doonta casharka ama mawduuca maanta wuxuu ahaa sida la idin sheegay glaucoma ama pressure indhaha oo bata ama Soomaalida u taqaano biyaha indhaha oo kuga xirmay waxaan maleynayaa si fiican waa la idinkaga dhaadhiciyay arrintaas hadda dib ugu laaban maayo waqtiga kooban dartiis laakiin glaucomada sida la idin sheegay dadka Afrikaanka ay ku badan tahay waana cudur iska aamusan oo sida tuuga oo kale taa oo aragina kala tagaya qofkan uu san fahamsanayn dhowr cilmi baaris oo Soomaali ka sameynay waxaan ku ogaanay inay tahay cudurka ugu weyn oo keenay indhala'aanta waxba laga qaban karin ama irreversible blindness la yiraahdo number 1 ayay ka tahay markii indhala'aanta oo dhan dhowr jeer aan survey ku sameynay 100 qof oo indhala oo Soomaaliyeed ay soo qaadato 50 kamid ah waxa indho tiray cataractiga ama xuubka indhaha fuula kaana waa u sahlan yahay maxaa yeelay waa reversible blindness indhala'aan wax laga qaban karo qofkaas oo indhola ku imaana xuub yar ayaa lensiga ayaa wuxuu noqday cadaado waa ka wareejinaysaa subax ku xigana waxbuu arkayaa 25% dadka indhaha la waxa indho tiray cudurkan glaucomada la yiraahdo glaucomadana sidoo indho tir waa la idin sheegay pressure-kii markuu batay wuxuu dilayaa dareen wadaha aragga ama optic nerve dareen wadaha hadduu tagana dib looma soo celin karo waa siduu u tagay sida sawirka ka arkaysaan oo kale ayuu cadeynayaan marka 25% indhala'aanta Soomaalida ku dhacda waxa keena glaucoma laakiin haddii indhala'aanta oo kala saarto tan wax laga qaban karo middan wax laga qaban karin 80% middan wax laga qaban karin waxa keena glaucomada maxay kala dib ku leedahay malaha calaamad nooca gaar ahaan dadka madmadow anaga ka midna u badan oo bannaangal glaucomada la yiraahdo calaamad malaha qofka iska soconaya araggiisa tartiib u soconaysa ilaa geesaha ay ka soconaysa ilaa markii dambe dhexda markay timaado araggii uu beelay qofka dhakhtarka inuu sax ka qaban karin marka waxa la yiraahdaa silent thief of the vision ama tuuga aamusan oo aragga la taga waxaan kaloo aragnay dadka isbitaalka imaanaya oo aan warka isku hayninba glaucoma inay qabaan in aad iyo aad u badan yihiin qofka markii diagnosis looga sameeyo glaucoma 50% hal il ayay la yihiinba il ayaa ka tagtay marka waa runtii cudur xanuun badan dhaqaatiirtana xanuun ku badan maxay hadii dhakhtar tahay qof hadduu ku yimaado waxa jeceshaana wax ka qabatid qof ku yimaado markaad wax ka qaban karin waa culeyskeeda leedahay adduunyadana aad iyo aad ugu badan yahay cudurka sidaas darteed ayaa waxa loo sameeyay toddobaad la yiraahdo toddobaadka glaucomada oo haddaan ku dhex jirno ama World Glaucoma Week annaga haddii aan nahay isbitaalka Dalmar muddo dheer ayaan soo wadnay wacyigelintaas waxa kaliya marka laga qaban karo waxay tahay in laga hortago araggii inuu lumo oo se uga hortagaysa screening aad isku samaysid qof walba oo 40 gaaray markuu u baahdo muraayadaha akhriska in la baaro pressure-kii laga cabiro la ogaado qofka qoyskiisa uu qabo glaucomada sidoo kale in la baaro in bulshada la wacyigeliyo oo loo sheego cudurka inuu jiro si ay u yimaadaan isbitaalada marka mas'uuliyadaas aan saaran wuxuu kale dib ku leeyahay daawadiisu waa dib badan tahay qofka wuxuu baahan daawo joogto inuu qaato Soomaalidana waa ognahay daawo joogto ma jecla waxay jeceliin quick fix wax la yiraahdo degdeg in wax looga qabto cudurkana sidaas ma ahan waa chronic disease u baahan daaweyn joogto marka runtii aqoonyahanka halkan fadhiya iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa cudurkan in la socdo in aware loo ahaado in la iska baaro wadamada adduunka markii la fiiriyay Afrikaanka badanaaba 80% glaucoma haday ku dhacdo waa in dhabeelaan waxa la daawada ma qaadan karaan lacag uma haystaan daawadii access uma haystaan aqoon ma laha marka waa iska dhabeelayaan marka dambe haddii aan qalin lagu sameeyo intuu wax arkaayo qof wax arkaya hadaa tirado ku qalayaana waa u diidaya qofka indhoolka hadaa tirado ku qalay araggan ku fiiqayo waa dareemi kartaa waa ogolaanaya laakiin qofa wax arkaya oo caado 66 ah
hadda tira biyan ka xiraya xoogaa yar cabsiya galays wuxuu ku leeyahay baliikaadi xoogaa hadduu haddana baadi ka yimid ama aqoontiisa iska hooseyso kuma sii jirto waddankii Sweden oo kale marka oo ah waddan horumaray iyo Afrika ayaa la isku soo qaatay Sweden waxaa la ogaaday galowkoomada hal qof indha tirtay inuusan jirin maxaa yeelay waxay haystaan isbitaaladii qalabkii dhaqaatiirtii awareness-kii screening-kii wixii oo dhan Afrikaankana 80% waa indha tiraysaa marka fariinteena maxay tahay haddii aan isbitaalka Dalmar iyo bulshada kale caafimaadkaba iska baar galowkoomada waa ku badan tahay Soomaalida waa ku badan yihiin maxaan ku raad Soomaalida waliba waxa ugu duwan Afrikaanka kale maadaama genetically ama DNA-geena isku dhex jirto oo Afrikaan iyo Asian iska dhalaanahay haddii aan nahay Soomaali ama annagaba Soomaali oo dhalnay Asian iyo Afrikaanka labadaba sida kalena oo dhigi kartaa oo theory kale waxa jirta leeyahay out of Africa theory oo macnaha la bani'aadamka oo dhan waxay ka yimaadeen Afrika oo nabi aadan Afrikaan oo han jiray qaar saas yiraahdaa jira dad kalena waa ay ka baxeen history haddii aan raacdo Asia dadka degan ama Europe degay Afrika ka tageen meelihii ugu horeeyay oo laga helay lafa bani'aadanna waxay noqdeen xuduudan Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia meesha u dhaxaysa marka waa dhigi karnaa Soomaalida ayada ugu duqsanba bani'aadanka oo dhanba taas markaan oo ka raacayno see noo qusaysaa galowkooma haddii aan nahay waxay noo qusaysaa labada galowkooma waana laga helaa annaga midda Afrikaanka laga helo oo ladii sheego open angle glaucoma la yiraahdo iyo midda acute angle la yiraahdo closure-ka labadaba waana laga helaa marka maadaama tan horena Afrikaanka ay ku badan tahay tan dambe angle closure glaucoma ay ku badan tahay Asianka Soomaalida macnaha dhiig Asian iyo dhiig Afrikaan labadaba waa leeyihiin waxaan u baahanahay marka wacyigelintaas in la wado isbitaalka Dalmarna waa wadi doonaa seminaaradan mar walba topic-ga markaas prominent-ga ah waxaan rabaa halkaan inoogu mahadceliyo qabanqaabayaashii seminaarkan dhaqaatiirtii soo jeedisay warbixinta qaybta indhaha isbitaalka Dalmar qaybaha kaleeto madaxa qaybta caafimaadka iyo yaana ilmaaminka soo qaybgalayaasha oo runtii bilay halkaan marka intaas ku soo gogoweynayo billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh